الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الإخوة، الله تبارك وتعالى ذنوب تلقى waxaa ugu culus shirkiga kadibna waxaa soo raaca dhiig la daadiyo oo xaq darro lagu daadiyo. sidaasi waa sida ay yiraahdeen a'immada Imam Shaafici iyo ninka la yiraahdo Ibn Hazmi ayagoo ka qaadanaya Qur'aanka Kariimka iyo sunnada Nabiga sallallahu alayhi wasallam. dambi ma jiro ka weyn gaalnimo kadib laba qodob: salaad kas looga tago ilaa waqtigeedii dhabcado oo buuxo, iyo naf mu'min ah oo kas loo diro xaq darrana lagu dilo. bacda shirki dambi ka weyn ma jiro. rabbigeenna tabaaraka wa tacaala meel cad buu masalada saaray. goodiga ugu adag ee qur-aanka ku soo aroorayna wuu ku sheegay: ruuxii ruux mu'mina dilo kas u dila abaalkiisu waa jahannama, waana ku waarayaa. allana waa u cadhooday, waana lacnaday, cadaab weynna waa u diyaariyey. nabigeennana sal alla alay wasalam wuxuu yidhi: ruuxa mu'minka diintiisa inuu waasacnimo kaga sugan yahay ka zuuli maayo intuusan dhiig xaaraama gelin. dhiig xaaraama markuu galo diinkiisii waa cidhiidhyamayaa, waasacnimadii buu waayayaa, xaalad khatara iyo cidhiidhi buu gelayaa xagga diinta. arrintuna waxa weeye sida nebigu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh, hal ruux oo mu'min oo xaqdarro lagu dilo ayaa ilaahay agtiisa kala weyn in ay adduunyadu baaba'do oy zuusho. adduunyadan samaawaadkeeda iyo dhulalkeeda iyo badaheeda iyo buuraheedu inay baaba'do baa ilaahay kala fudud hal ruux oo mu'mina dilkiisa. maxaa yeelay mu'minku waa ka xaq weyn yahay, ilaahay agtiisana waa ka karaamo badan yahay adduunyada oo dhan. xataa kacbada, sida xadiidka nebiga ku sugan sal alla alay wasalam, xataa kacbada waxaa ka qiimo badan ruuxa mu'minka ah. maanta kacbo la dumiyey, nin kacbada tegay oo dumiyey xaalkiisu inalama fududaadeen. laakiin ninka boqolka naf ee mu'mina isu maray cagta mariyey warkiisu waa fudud yahay. allah tabaaraka wa tacaala naf mu'minada agtiisa kuma fududa. malaa'igta markuu rabbi ku yidhi waxaan abuurayaa dhulka, waxaan ku abuurayaa addoommo kuway ah oo u kala dambeeyo maamula ibni aadamka laga hadlayaa, ayay malaa'igtu waxay yidhaahdeen: atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku addimaa. rabbiyow, dhulka ma waxaad yeelaysaa cid fasaadisa oo dhiigga daadisa? malaa'igtu u fiirso, dunuubtii kaleo dhan mayna sheegin, laakiin ibni aadam waxay ku eedaysay oy ku sheegtay dhiig buu daadin doonaaye see baad dhulka u keenaysa? ma waxaasaad rabbiyow dhulka keeni dhiig la daadiyo? sidaas daraaddeed baa maalinta qiyaamada xisaabta rabbi maxkamadda waxa ugu horreeyo oo dadka lagu kala saari doono dhiigga u horreeya. intaan fayl kale la furin oo diiwaan kale la furin oo wax kale xisaabtooda la qaadin, dhiigga ugu horeeya awalu maa yuqdaa bayna annaasi yowma alqiyaamati dimaa. dhiigguma sahlana. ruuxa mu'minka ilaahay rumaysanee qalbigiisa wax yaroo iimaana ku jiro, ruux muslim ah dilkiisa xataa kelima nuskeed, xataa hal xaraf kagama qayb qaato. waa ka cararaa, waa ka ixtiraasaa, waa iska ilaaliyaa, waa iska jiraa, waa ka dhowrsadaa. le'anna waxa weeyaan waa meel halis ah, ruux galayna kama baxo. sida aharka cabdillaahi bni cumar uu tilmaamayo, ruux galay kama baxo, kamana bixi karo. bal waxaa dhacaysa marka aad dhiig daadiso, allah tabaaraka wa tacaala wuxuu kugu imtixaanayaa dhiiggaasi inuu kuu jiido dhiigag fara badan, oy markaa kuu fududaato inaad dhiigga cabto, ood bada dhiig ajiidho, oodan u aaba yeelin waxaad samaynayso. waxay ka dhalatay dembi aad gashay nataa'ijtiisa waay.
arintu waxay u baahan tahay dadka muslimiinta khaasatan ummadan aan luqadeeda ku hadlayay ee ibtilowday ee intaas sano dhiigeeda daadinaysa ee jaraa'imta galaysa xagee loo tagi doonaa soo Allah maxkamadiisa la tagi maayo tabaaraka wa tacaala maxaad samayn doontaa rabbiga marka intaad hor tagto khalaa'iqdii aad ka qayb qaadatay layntooda qabiil baad ku laysay urur baad ku laysay fikir khaldan baad ku dishay rabbiga tabaaraka wa tacaala hortiisa intay kugu dhagaan ay yiraahdaan rabbiyow waa ka kiina dilay weydii muxuu noo dilay war maxaad u dishay jawaab ma leh وما واحد جواب له هلي كرا روح مسلم ولا دلمية إلهي أكتس جواب له هلي كرا جواب ماله وحيابها دعية وواحد لوجنح وأنا واحد لقى مرجوده وأنا واحد لقى يقصده حالته سواحي سي أذكته مركز جرائم تنوع عصر لقصة ماينا يو مجع جهاد مركز لقصة ماينا يو مجع دين إلهي بالله نصرينا يا marka lagu sameeyo kitaab ilaahay baa dhulka lala rabaa inuu xukumo marka magacaasi la isticmaalayo bay xaaladu si adag tahay maxaa yeelay dadkii iyo diintii baa la isku diri oo jihaadkii baa magaciisa lagu ciyaaray oo muslimiintii iyo fariidada baa la isku diri oo gaaladii baa lagaga qoslin oo lagaga farxinaya kullu dalika mafasid isa saaran weeye soo ceeb weyn ma ah adigoo muslim ah dadkaagii layntooda in aad ku faraxdo ood sheegato oo aad nasri iyo guul ka soo qaado gaalkuna yiraahdo waan ka xunnahay dadka meesha ku baaba'ay soo ceeb weyn ma soo fadeexa ma aha waase ninkii garanayo dareemayo waa inuu gaalku muujisto inuu dadkaaga u naxayo adigana aad idaacadaha ka tiraado gaalan baabiye murtadiin baan baabiye oo ummadii ku tumato إلهي بان إذن كل أريه سورة نوعية بيوتالله مساسا جهادا متاسا قال الله دقالنا متاسا وضن حرينا متاسا معوها خير وناق يقول له قدوني أبدا أبدا سورة قبيحة وحد سوغاني سان وحد دعيميه ويسوهر مرتي تاريخ ذا مركز ديب لو أخريو فكر كان منحرف كأه إن ديقوا أبيالينين meel alla meeshuu arkaba dhiigga cabaya daaqaya fikirka noocani saalixiinta iyo caruurta iyo dumarka iyo dadweynaha aan dan ka lahayn fikirkaasi hadana ku faanaya hadda ma ah markaad akhrido kutubta taariikhda iyo siirada Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu khaliifkii raashidka ahaa ragii islaamka qaaday ragii ugu horeeyay buu kamid ahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam gabadhiisii buu qabay ilmaadeerna way ahaayeen asagoo nool buu nabigu jannada ugu bishaareeyay saabiqiintii buu kamid yahay afarta saxaabada ugu fadli badan ninba dhiigiisa xalaashaday islaamnimo iyo jihaadna ku xalaashaday ninkaasi wuxuu ka tirsanaa qolada la yiraahdo khawaarijta Ali ibn Abi Talib oo salaada u soo baxay intuu u yimid uu madaxa ku dhuftay sagii nin kale Ali markuu dhacay ayuu wuxuu ku yiri kudul akhriya Ali oo yaala wuxuu yiri Ali xukumka Ilaahay baa iskale aduguna malihid saaxiibadana male xukumka Ilaahay baa iskale muxuu ka wadaa kitaabkii Ilaahay baad ka leexatay oo rag baad ra'yigooda qaadatay xukumka Ilaahay baa iskale annaguna waxaan ku dilaynaa diin rabbi inaan soo celino kitaab Ilaahayna dhulka ku xukun xukumka Ilaahay baa iskale adiga raggaagu malihidin caliyow markaasuu akhriyay wa min an-naasi man yashri nafsahu ibtigaa'a mardaatillaah dadka waxa kamida ruux naftiisa Ilaahay ka gaday ridihiisa isagoo raadinay waxaan ku dilay caliyow jannaan kugu rabaa ridaan Ilaahay kaga doonaya waxaan rabaa dhiigaaga inaan janno ku galo Allahu akbar ma Ali baa dhiigiisa janno lagu gali ma Ali baa dhiigiisa kitaab Ilaahay lagu koryeeli ma Ali ibn Abi Talib baa dhiigiisa nusra iyo dawlad islaam lagu dhalin fikir ajiib ah markaas mid dib ka yimid oo ragga fikradda xambaarsana aba amaanay wuxuu leeyahay ninka duridda sameeyay ee Ali duray taqi Ilaahay ka baqayo aha
duridda iyo dhibka uu geystayna jannuu ku raadinayay ilaahayna riduu kaga helay marar badan baan xusuusan buuri ninkii nooca ahaa markaasaa waxaan leeyahay buuri ilaahay agtiisa addoommada midka ugu miisaan culus buu noqon doonaa yaa kariim ma abshaca suura aad u foolxun waa wamaca daalika rag baa janno ku raadsanayay cali ibn abi aalib dilkiisa haddii janno lagu raadsanayay soomaali layntooda in janno lagu raadsado maxaad ula yaabi marka cali baaba janno lagu doontay fikirku mar hadduu qalloocdo oo uu jidka ka baydho halis waay waxaan idin leeyahay waxa noocaasoo kale in diin loo tiiriyo waa khalad in kitaab ilaahi loo tiiriyo waa khalad in jihaad magaciisa la siiyo waa khalad in la taageero waa khalad in laga bari noqdana waa waajib nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh saxaabigiisa khaalid ibn alwaliid oo intuu ta'wiil sameeyey dad si khalada u dilay ayuu nabigu yidhi sallallahu alayhi wasallam allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a khalid ilaahu bari baan ka ahay kumana jiro kamidna ma khalid wuxuu sameeyey bari baan ka ahay khalid wuu ijtihaaday dadaal bayna ka ahayd khayr doon buu ahaa nacam maanta inaad tunka saarato difaacdo ood waxa noocaasoo kala u doodo walaa tujaadil can alladhiina yakhtaanuuna anfusahum inna allaha laa yuhibbu man kana khawanan athiima waxa noocaasoo kala looma doodo lamana difaaco waa laga bari noqdaa haddaad ka bari noqon weydo kula qumanaato waxaad ogaanaysaa hal qodob nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam gafka marka la sameeyo oo dhulka lagu sameeyo ninka goobta jooga ee nacab ee aan doonaynin wuxuu la mid yahay sidii ruux ka maqan oo kale ruuxa goobta ka maqan laakiin raalli ka ah waxa dhacayana sidii isagoo goob joogahayoo sameeyay buu la mid yahay haddaad qaaradaha salkooda joogto oo waxa noocaasoo kale aad ku faraxsantood jihaad u haysato inay bannaanta aad u haysato adigiyo midka galayba isku dembi baatiin ka soo amrayna idinla dembi wey midka sheegtayna la dembi wey waxa noocaasoo kale ah wax la tabriiriyo ama tunka la saarta ma aha dhiig muslim oo tumayaal ah oo boqolaal dhaawac ah oo dad gubtay ah oo dad dhuxuloobay ah oo ummad xataa indhahagu ayna qaban karaynina waxa noocaasoo kale inaad tunka saaratood ku faanto aaway iimaankii aaway diintii aaway akhlaaqdii insaanka caadiga ah baan sheegan karayn ilaahay ha laga boqo tabaaraka wa tacaala meeshaynu ku soconno meel sahlan ma aha inxiraafku meeshuu gaadhayna meel sahlan ma aha da'yarta iyo dhallinyarada waxaan u sheegayaa xamaaska iyo niyad wanaagga iyo jannadoonnimadu yaysan cadaab idinla gelin adoo jaahilan waxba garanayn mid aan ku dhaaminba markaad u tagto oo uu ku yidhaahdo khalqiga allah jannaduna waa iridda adiga janno waxaa idin dhaxaya naftu inay kaa dhacdo laa oo aad haliishood iyo cadood jannada ku orodo oo ay ku timaado wabadaa lahum min allahi maa lam yakunuu yaxtasibuun waxaad filanaysay waxaanayn uu kugu soo baxo meelaad ka noqoto male mindi uus ku tagtay rabbi baabaad hor tagtay jannaa meesha taalla naar baa taalla xisaab baa taalla khalaa'iq aad laysay baa meesha taalla ma waxa kuu shafeecay hebel baa yaamay ma waxa wax kuu daraysa ururkan ka tirsanaa ma waxa wax kuu taraysa niyadaydu way fiicnayd ma waxa waxba kuu tari mayso warkaadsada oo tartiibsada oo hays halaagina oo ummadda halaagina oo Allah ka baqa tabaaraka wa taala sallu wa sallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warda allahumma 'ani as-sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu 'ajilahu wa ajilahu wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi 'ajilihi wa ajilihi allahumma ya hayyu ya qayyum برحمتك نستغيث اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة